maalmihii ugu dambeeyay waxa caasimada Soomaaliland ee Hargeysa si weyn looga hadalhayay dhacdo ugub ku ah caasimada Soomaaliland ee Hargeysa dhacdadan oo ahayd aroosad la sheegay in gabadhii aroosada ahayd masciinad looga soo dhigay nin la sheegay in uu ku labisnaa dharka dumarka isla markaana iska dhigayay in uu yahay gabadha. Arrintan ayaa waxa loo gudbiyay maxkamadda isla markaana ilaa hadda gacanta ku haysa. Arrintan si looga gungaaro isla markaana loo helo xaqiiqada jirta ayaa waxa uu telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV maanta u guurgalay isla markaana uu soo wareystay qoyskii aroosku ku eedeeyay in ay masciinad uga soo dhigeen aroosadii uu guursanayay nin la sheegay in uu ku labisnaa dharka dumarka. Qoyskan ayaa waxa ay ka jawaab celinayaan isla markaana arrintan ay ku tilmaameen in ay tahay mid lagu aflagaadeynay isla markaana sharaftooda mid looga dhacayo. Sawdaahir oo inta walaasheeda ma garatay waxa dhacday in walaashay reer ay ehelkayaga ah in adeerkay shaqaale u noqotay ayaa dhacday. Shaqaale markay u noqotay ay maxaan ku raayay inaan iska barteen inantii baa leeyahay inantiini waxa la tagay inaan aan maxaan ku haytiisaan loo garanaynin waxaan ku yiri walaalo ii soo qabo baan ku yiri iigu yeedha waan u yeedhay inantii way ii timid Cabdiraxmaan waan la sheekaysto waxaan ku walaal ka waran ninka iqdacada la sheegay waxay walaal waan isjeclay waan isguursanayna ninkii baa lambarkiisa la soo siiyay lambarkii baan garaacay waxaan ku yiri Cabdiraxmaan ma tahay haabigu yiri waxaan ku walaal dambayga ka soo gashay haye la tagaysay baa leeyahay baan ku yiri inanta aad la tagaysay walaasheed baan ahay qof weyna looga qurux badan in yaro laga kaxaysto maxaan ku dhaayay xaafad laga kaxaysto dadkoodii nool yahay ilaahay baa arsaaqada bixiyo oo arsaaqadu waa mawjiid ee walaal u kaalay wal dadkii dhalay baan ku yiri waa yahay biigu yiri Cabdiraxmaan wiiga aqbalay uu yimid markii uu yimid Cabdiraxmaan aabahay baan wuxuu aaba laba been xalaal waa la isasiiyay siibu aan siinayna walaayada soo diray walaalkay buu ku wareejiyay walaalkay hadii uu ku wareejiyay aabahay inanta markii la meheriyay ayay tagtay aaba sidii ugu yimid aaba uu ku yiri bas ma haysto aaba uu kaxeeyay hadii uu raaciyay wuxuu aaba uu naga tagay aaba dardaarankiisa oo nasiinaya aaba dardaarankii markuu nasiiyay anagu dardaarankii baan raacnay 11 qof baan ku tagnay meesha 11 qof aroosada mooyaane 10 kay kala wan soo noqonay iyo milxisadii waanu ka nimid 11 qof baan ahayn milxisadii aaminaanu ka nimid hadii aan ka nimid milxisada aniga dhalay waa wala inantaydo waa tambaleeg ko way Soomaali wax ku tira boqor war waqaata tabto kor waqaata kolkii alla wax ka siiyo banka qaadin gabadheeda sida ku hooya sidii gabadhii lagu hooyay sidii lagu kaxaystay gabadhii saati haddana arrinta dib igu soo noqotay anigu wanaag mooyo xumaanba kama aan talinayni maalinta beenkiina arooska la hooyay ninkaasna wuxuu markii hore noo sheegay inay inanta dirlaa isku guursanayaan dad jaarka ummaduna si aan lumran lagu gaxeeyo biiri dirlaa inagu guuriyay inanta dirlaa baan ku raacnay annaga wixii aan u qaban karina u qabanay jaarnimo hadalkan ka codsanay markii hore ninkaas naga diiday oo yiri baa la yiri degdeg la igu hooyo waan gaxaynay 11 qof aan ku gaxaynay inanta marxiisada iyo inanta aroosada oo kaliya kaga nimid hal saac baan daqiiqad gurigeed baan guriga joogin hal saac ma wada joogin 9 iyo barkii barta ka tagnay 10 oo buurana waa soo noqonay haddaan ahaana guriga la iga raacay la iga raacayna fasaxii taanki reenti taariikhda dambaan gabadhii masciinada looga sii dhigay aroosada waxay la sheegtay guriga la geeyay gurigan kula noolaa kadibna markaan fiidkiisa xanaan ugu tunkunay ma dooran jeeynantan habarka kuwa aan bartay ikan anaga dibaan iska kabin jaxan jiray ma barasho ma baahniyay igada ninkan kharashkan uu ka baxay uu leeyahay kharash baa iga baxoon doonaya yuu ka doonaya cidu ka doonaya waayo waxaan leenahay kharashku halkaas ka doonaysa ala yaqaan anaga kharash ciidu nugmay mana rabno asagu baan ka maqlayna la soo dhigay meesha waxaan shaqadeed kulama inantii milxiisada ahayd waa taa dumarkii hablihii galbiyay waa kuwa gurigii laga raaciyay waa kan goobjoog baan ahaa markii loo feelayay ee la raacinayay ayga wada baxay ninka la sheegayay yaraniyo naagta lagu sheegayana inuu jiro iyo inuu noolyahay da wax qalbiga igu tiramaan waxaan aqaanana maan waxaan meesha ka fiiriyay waa sheeko bari dambe oo toon jooga meesha ila uu soo baxay oo ninku muxuu ahaa nin mariya xilan baa habeen loo yimid oo waa tiin erinado oo makiiba ahaa inaka waa aragtay ninka la soo dhigay meeshana waa aragtay runta iyo beentana intaas ama iskaga filan